Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada muuqaalkeena. Mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay sifooyinka uu leeyahay hogaamiyaha wanaagsan. Chuck Wheelan oo qoray book la yiraahdo Extreme Ownership wuxuu ka qalin jabiyay dugsiga ugu tababarka ciidamada Mareykanka oo loo yaqaan Navy SEALs Academy, wuxuuna ka soo noqday tababaro sare. Bookgan wuxuu ku saabsan yahay sida dadka loo hogaamiyo oo mas'uuliyadda loo qaado. Hoos waxaan kugu sheegayaa 5 qaanuun oo hogaamiye naajic ah ku noqon karto. haddaad rabtid inaad noqotid hogaamiye wanaagsan, waa inaad 1. cidna eedayn. mar haddaad hoggaanka haysid, waa inaad ogaatid mas'uuliyadda adiga inay dusha ka saaran tahay. haddiiba xitaa kooxdaadu wax qalad ay sameeyaan, waa inaad mas'uuliyaddeeda adigu qaadatid. waa inaad mas'uuliyadda ogolaatid oo aanad eedda iska duwin, oo wixii qalad ah mas'uuliyaddana adiga xalisid. 2. waa inaad noqotaa furaha guusha. inta badan koox guulaysta iyo koox guuldareysata waa hadba sida loo kala hogaaminayo. hogaamiyuhu inuu ogaado in mas'uul uu ka yahay guusha iyo guuldarrada kooxdiisa. 3. inaad isku kalsoonaato oo aad hooyin karto guusha waa wax aad u fiican. waa inaad si niyad u gashataa inay suuragal tahay yoolkaaga iyo himiladaada inaad xaqiijin kartid. kalsoonidaad isku qabtidna waxay dhiirigelin u noqon kartaa kooxdaada hogaaminaysid. 4. xaaladda adag oo markaa kaa hor timaada waa inaad deganaansho kaga hortagtaa markii xaalad adag soo wajahdo. 3 tallaabo qaad. 1. isdeji adigoo markaa iska fiirinaya caqabadaha ku soo wajahaya waxa kuu sababay. 2. xaaladda daraasay markaa ku haysata. 3. go'aan qaado weliba adigoo si degan uga fikiraya. 5. naftaada inaad ka adkaatid. qofka naftiisa ka adkaada ayuunbaa horumar ka talaabsan kara, dadna hogaamin kara, waayo qof kale wuxuu markasta raadiyaa jidka ugu fudud ugu raaxada badan. marka haddaad rabtid inaad horumar dhab ah gaartid, waa inaad naftaada xakamaysid oo waqtigaaga ka faa'iidaysatid. weliba iska ilaali hurdada faraha badan iyo madadaalada badan, waxaanaad ogaan doontaa inaad tahay qof naftiisa ka adkaaday oo guulaystay. markaa muuqaalkeen intaas ayuu ku egyahay. muuqaalkiisa kale inta ku kulmi doono. sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.